asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muuqaalka maanta waxaa uu talagalay qof walba oo laga yaaba inuu isweydiinayo sida u shaqeeyaa business modelkan waa maxay waxyaabaha la iska rabo muxuu yahay yacni su'aalo badan oo dad waxaa jiro isweydiinayaan oo yacni raba inay ogaadaan dropshipping waa maxay laakiin haddana ma jiro qof si sax ah jawaab u siinaya waa ognahay dropshipping siduu u shaqeeyo oo ah inaa maarata alaab kasoo qaadid China ama US meel kaleeto kadibna qof kale ha kasii iibisi adoo alaabtii haynin laakiin taa marka laga soo tago gudaha markii loo soo galo waxyaabaha maarata xaqiiqada ah oo jiro waxaa laga yaabaa badankiina in maaragtay maybe youtuber kaleeto ama qof kale ka soo maqashay in maaragtay business siduu yahay laakiin marka ani ahaan qof maaragtay ku dhawaad hal sano ku dhex jira businesska ayaa maaragtay fahmi karo waxyaabaha gudaha la kulmaysid oo marka gudaha gashid aad ku arki kartid so waxaan isleeyahay waxa ay qofka maaragtay ugu saxsan oo maaragtay macluumaadkan ku sheegi karo waxaana maaragtay ahay kaliya xamal inahay youtuberka kaliya Soomaalida hadaan filayo oo kaliya channelkiisa kaga hadla dropshipping channelkii kaliya waxa kaga hadla dropshipping sida aysiiska loo sameeyo sida ads loo sida maaragtay creatives loo sameeyo so marka waxa dhigi kara waxa ay qofka saxda oo ka jawaabi karo su'aalahan so marka let's get started horta marka koobaad waxa kugu talin lahaa haddii aadan haysanin primary income source aadan haysanin dropshipping ka shaqo kuma li sababtoo wuxuu kaaga baahan yahay inaad dakhli maaragtay geliso wuxuu kaaga baahan yahay marka koobaad inaad maaragtay subscription iibsato Shopify subscribe gareyso domain gadato xaysiiska Facebook ama TikTok mid ku hadaba so marka haddii aad qof maaragtay maanta shaqeynin ama primary income source aadan lahayn way kugu adkaanaysaa inaad dropshipping samaysid mana aha meelaha qofka hoosta maraya inuu ka bilaabi karo maaha waxaa kaga wanaagsan inaad ka bilaawdid shaqooyinka maaragtay caadiga ama shaqooyinka aad maaragtay service ka samaynaysid ama shaqooyinka kaliya skills kaaga baahan oo lacag kaaga baahneen sida inaad samaysid turjumaanimo sida inaad samaysid maaragtay video editing waxyaabo noocaas oo kale taa markaas dhigi kara marka next step ayaa maaragtay lacag ayaa haysataa markaas ayaa dhigi kartaa waxaan maaragtay u gudbaya inaad sameeyo dropshipping sababtoo saa ku sheegay hadduu jiro qof ku dhahayo dropshipping waxaa ku samayn kartaa maaragtay adoo waxba haysan ku bilaabi kartaa ama xitaa qof maanta iskuul ka soo baxay waxba haysan shaqeynin kula talinaya dropshippingka maaragtay qofkaas uu qaldi ani ahaana qofku waa weydiiyaa inuu shaqo hayo inuu maaragtay lacag maker ka soo geliso kadib qofkaas maaragtay unbaa samayn karo midda labaad oo maaragtay isagana qofka waxaan dhihi lahaa isku diin dropshippingka waa qofka impatientka waxaa qofka aan dulqaad ka lahayn qofka maanta rabo quick money inuu helo qofka maaragtay rabo inuu maaragtay lacag degdeg sameeyo maaragtay business modelkan kuma shaqeynayo sababtoo ah ma jirto wax la dhaho quick money in this business waxaa u baahan tahay dulqaad badan waxaa u baahan tahay inaa maaragtay isku daydo waxyaabo badan storekaaga koobaad waxaa laga yaabaa inuu fail gareysmo storekaaga labaad waxaa laga yaabaa inuu fail gareysmo saddexaad afaraad maybe midka shanaad laga yaabaa in maaragtay productigii winnerka ahaa iyo wixii isku ka aadaan kadibna aad samaysid crazy money so marka haddaad tahay qof maaragtay impatient ah qof business modelkan aan u dulqaadan karin sidoo kale business modelkan sida hadda waa hore maaha waa branded waa maanta la joogo oo sida brand camal u shaqeynaysaa wixii waa hore oo maaragtay drop markiiba aad qof inta wixii haddana aad turtid maaha hadda waxaa loo shaqeynayaa si long term ahaana oo brand ayaa laga rabaa so marka ma suurtagelayso in haddii aadan dulqaadkaas lahayn so labadaas haddaa ka mid tahay labada qof haddaa ka mid tahay qof maanta shiid ah iyo qof aan dulqaad u lahayn businesskan ama u dulqaadan karin businesskan then waxaa ku dhihi lahaa dropshipping is not for you okay hadda aan waxaan fiirinaa dropshipping myths marka mythska waxay tahay waxyaabaha khaldan oo laga aaminsan yahay dropshipping waxyaaba waxaa jirta laga yaabaa qofaa kuu sheegay ama youtuber hebela kuusoo sheegay ama waxbuu kaa dhaadhiciyey marka waxaa la rabaa marka hore inaa ogaatid waxyaabaha jiro ama waxyaabaha suuqa ka maqashay kaleeto iyo wixii saxda ah marka koobaad waxaa laga yaabaa inaad maqashay in dropshipping uu yahay easy ama uu u baahan yahay ama uusan u baahnayn wax effort ah wax dadaal ah uusan u baahnayn taas horta waa khalad easy ma aha dropshipping and maybe you can try other businesses lakin easy ma ahan oo waxaa loo baahan yahay inaa maaragtay wax la baran karo waa of course laakiin haddana easy oo iska fudud ma ahan qofka waxaa loo baahan inuu at least computing skills leeyahay marketing skills leeyahay sales skills leeyahay AI skills leeyahay video editing skills yariisa leeyahay design skills leeyahay so marka waxyaabahaasoo dhan waxaa la rabaa inaa maaragtay u diyaar garoodo inaa barato haddaadan hor u lahayn haddaad leedahayna waa horaa ka soconaysaa you good to go marka aan easy maaha taas ugu marka koowaad midda labaad get rich quick waxa waaye lacag degdega tii hadda sheega waaye qof dulqaad lahayn so marka haddaad leedahay dropshipping waa get
quick waaye oo lacag degdega ka samayn kartaa qofkii kugu sheekeeyay hadduu jiro qof kugu sheekeeyay taas iyadana waa khalad ma jirto get quick rich wax la dhahayo is a long term wuxuu u baahan yahay inaad brand samaysid inaad waqti gelisan everything mid saddexaad waxay tahay waxa lagu dhahayaa dropshipping is dead dropshipping uu dhintay oo wax laga soo tago waaye taas iyadana waa been sababtoo ah dropshipping waa e-commerce waa wax la kala iibsanayo waa maanta wax la gadanayo Amazon jiraan maalintii waxay sameeyaan billions so marka ma suurtagelaysa in dropshipping uu dhan noqdo as long as ay jiraan dad wax iibsanayo as long as ay jiraan alaab la iibinayo so alaab kala iibsanayo waxa la soo bilaaway arano gorme la bilaaway maybe kumanaan kun waay hore la bilaaway marka ma suurtagelaysa in maaragtay uu dhan noqdo as long as uu jiro e-commerce business uu jiro mid saddexaad and slow shipping times haddii aad leedahay sidii waa horeeto slow shipping times qof alaab ka gadanaya and then waxa u dareysaa maybe saddex maaragtay week kadib bil kadib saas uma shaqeeya hadda businesska wax walba waxa loo baahan yahay hadan quick sababtoo ah quick waxa yeelayso customers ku xabarteen inay Amazon maanta ay ka dirsadaan birina markiiba Amazon maaragtay alaabtii helaan so markii in haddii adiga qofkii aad sugaysid ama qofkii aad heynaysid 3 weeks alaabta aad kala maqan tahay then ma suurtagelayso businesska inuu sii shaqeeyo sababtoo ah saas uma shaqeeyo hadda dropshippingka waa quick markii waxaa la rabaa maaragtay inaad samaysid faster shipping times waxaana ku samayn kartaa inaad raadisid US suppliers maanta waxaa jiraan US suppliers dad alaabtii China ka soo qaaday already oo Mareykanka ku dhaxayo markii alaabta aad iibisid isla markiiba qofkii alaabtii inuu maaragtay wadankii dhexdiisu joogaa inuu alaabta qofka u geeyo maaragtay waxay qaadanaysaa marka uu yar tahay markay ugu badantaan ka wada waxay qaadanaysaa 7 bari sababtoo ah already qofkii wadankii uu joogaa kaliya waxay ku xiran tahay wadanka meeshuu ka joogo iyo Mareykanka meeshuu ka joogo ku xiran tahay kaliya so marka taas iyadana waa myth kale mid kale iyadana waxa waaye waxay dhahaan dropshipping waa dadku waxay iibinayaan low quality products oo maaragtay low quality maaragtay oonan waxaan waxay ahayd waa hore waagii 2017 la bilaaway maanta low quality products ma soconayaan sababtoo ah waxay helaysaa chargebacks waxay helaysaa refunds waxa lagu dacweynaa maaragtay Shopify-ga qofkii bangigiisu la hadlaa wuxuu dhahayaa qashin ayuu qofkan iibiyay lacagta heli soo celiyo and then adii maanta si maaragtay waxa ku dhimanaysaa chargebacks and whatever so marka low quality products oo skiilowaysa maanta waxaa la sameeyaa maaragtay in la hagaajiyo wax maaragtay products muhiim ah product maaragtay solving problem sameynayo product maaragtay saameyn leh qofkan wax maaragtay u hagaajinayo product proven ah inuu shaqeynayo daasoo aniga mar walba ma ku dhahay waxa ay ibisaa fidget spinner baasheerta lagu ciyaaro ma ku dhahay waxa ay ibisaa nal yariis ah waxyaabahaas waa hore la iibin jiray maanta waxaa loo baahan wax dhibaato weyn xalinayo waxaa loo baahan wax xalinayo dhabar xanuunka wax xalinayo jilba xanuunka wax dhibaato sax oo maanta dad haysta dhibaato noocaas oo kale xalinayo ayaa laga rabaa inaad keentid si aad maaragtay sales u samaysid so waagii la iibin jiray low quality products isku dhamaatay hadda waxaa loo baahan yahay inaad keentid high quality products iyo problem solving products midda kale iyadana waxay tahay waxa laga aaminsan yahay dropshippingka in low profit margins dada ku dhahay low profit margins ayaa jiraan oo lacag fiican lagama sameeyo faa'iidadu yar tahay taas iyadana waa been waxaa arkaysaa waxaa ku tusi doonaa brandiyo charge gareynayaan 5x 6x 6 jibaar 7 jibaar charge gareynayaan sababta waxay sameynayaan in maaragtay waxay ku xiran tahay waxaan saa u xaysiinaysid maanta la joogo dhahano telefoonka isticmaalaysid qof ayaa waxa laga yaabaa in maaragtay markuu kuu xaysiiyo uu kaa siiyo $2,000 qofna waxa laga yaabaa markuu kuu xaysiiyo kaa siinayo $200 ama ka yar kaa siinayo sababtoo ah kumaadan qancin siduu wax kugu xaysiinayo marketing skillskiisa ma fiicno copywriting skillskiisa ma fiicno marka laakiin aad marketing skillskaaga ogtahay waa naqaanaa maanta brandadii waaweyn marketing skillskooda markuu qofku uu wanaagsan yahay wuxuu samayn karaa productiga wuxuu charge gareyn karaa wuxuu rabo wuxuu kaa siin karaa qaali sababtoo ah wuxuu kaa dhaadhiciyey shaygan maaragtay inuu yahay wax shaqeynayo inuu maaragtay wax ku anfacay yahay dhibaatooyinka ku haysta ayuu maaragtay farta ku taabtay so adiga waxa ku qasbantaa oo waa waxaan u baahnaa leedahay so marka mythkaas waa isku dhamaatay haddii aad waxaas ka aaminsaneed then khalad waaye saan kuu sheegay saxsan so marka aan usoo galno branded dropshipping iyo dropshipping waxay kala duwan yihiin dropshipping waa midka caadiga ah alaab laga soo qaadaya saas la sameynaa la gadaya laakiin hadda waxaa loo hormariyey xarafka branded maxaa laga wadaa so branded macnaheedu waxay tahay in wixii uu yahay wax legit ah laga dhigay wax maaragtay store sax ah waxa laga dhigay wax maaragtay
wax branded ah company mise wixii waxa laga dhigay store branded ah markuu wax branded ahayn macnaheedu waxay tahay waa maanta dukaan suuqa ku leh magaca dukaanka ugu qorneen waxa tahay la garanaynin waxaas camal waay taa marka sida kale tahay laakiin marka tahay branded waxa markii la dhahay okay dukaan hebel wuxuu yaqaanaa ama waxa lagu yaqaanaa inuu iibiyo kaliya carwada dan waxa tahay branded waxa lagu dhahaa magac hebel magaalada laga yaqaanaa ama maaragtay qofkii imaado dukaankaaga wuxuu arkaa inaa kaliya gadid carwada dan waxa tahay branded waxa tahay nin maaragtay wixiisa la fahmi karo storekiisa qurux badan yahay wuxuu iibinayo maaragtay wax ku dii branded yihiin wixii legit ayay u egyihiin legit ayayna yihiin sidoo kale so marka waxaan inaa kutuso branded dropshippingka blueprint waxa la dhahaa wadada camal ama dropshippingka blueprint sawirka kore iyo sida maaragtay uu u shaqeeyaa inaa kutuso stepka koowaad mar walba waxay tahay inaad samaysid product research waxay kaa saacidaynaysaa inaad ogaatid horta waxa iibinaysid inaad soo raadisid waay shayga koowaad inaad soo raadisid productigii waay kahor intaadan magac iibsanin kahor intaadan store samaysan kahor intaadan maaragtay xaysiis ku ordin waa inaad marka hore ogaataa waxaa iibinaysa horta maxay tahay maxaa iibinayaa intee ka ogaadaa waxaa iibinaya maxaa iibiyaa waay qofaa ku dhahay nal iyo waxaas meel baa laga heli kara waxaa la rabaa inaad keentid wax dhibaato weyn xalinaya wax markuu qofka uu muuqaalka arko uu daawado xaysiiska daawado u dhigi karo niyo waxaan wallaahi waa aniga qofka laga hadlaayo dhibka haysta aniga waxaan dhibkan waa dhibka anigii haysto waana waxaan ku qasbanahay markaas inaan gato so marka product researchka meelaha waaweyn laga sameynayo waxay tahay meel la dhaho calo data hadda fiirino waxaa ka fiirin kartaa calodata.com waa maxay kaaga baahan yihiin bishii lacag kaaga baahan yihiin inaa maaragtay fiiriso laakiin 7 day of free ah ayaa maaragtay samayn kartaa 7 days kaas hoos waxa ku qoran no credit card needed so marka wax kaar ma lagaaga baahno kaliya just gmail ka gelinaysaa and then 7 days of free oo haysataa aad ku ogaan kartid productyada lagu dhex iibiyo TikTok shopka gudihiisa sababtoo wax hadduu TikTok shop ku dhex shaqeynayo oo TikTok shop lagu dhex iibinayo oo sales badan sameynayo macnaheedu waxay tahay wixii aad soo qaadid oo Facebook ku soo wareejisid store aad u sameysid then waxay u badan tahay wixii inuu gadmo sababtoo waa wax proven ah oo shaqeeyay oo aad garanayso so TikTok shopka waxa ku arki kartaa productyo sameynayaan bishii sameynayaan 3 milyan 2 milyan maaragtay ka badan sameynayaan waxaan arkaysaa in productyadaas ay yihiin supplement waxyaabaha ugu badan maanta la gato waa supplement sababtoo qofka waxaa dhigi kartaa waxaa kaa maqan magnesium jirkaaga magnesium u baahan yahay waxaasaa kaa maqan soo qofkii wuxuu dhahaa niya waa run sababtoo maanta markaa fiirisid maraykanka cuntada ay cunaan oo kaleeto ma laha nafaqo fiican kaliya waxay u badan tahay cunto qashin ah soo qofkii waxaa dareemaysaa inuu ka maqan yahay waxyaabo badan dadaa hurda la-aan haysa dadaa energy la-aan hayso daas waay mar dhexdaas waxaa jirtay aad u gadmaayay shilajid baasha la dhaho oo maaragtay busgaranayso energygaaga focuskaaga waxyaabaha noocaas oo kaleeta so kale data waxay tahay meelaha ka fiirin kartid inaa maaragtay ogaatid productyada ka shaqeynaya TikTok shop kadib alaabtii aad soo qaadid productiga aad maaragtay soo qaadid AliExpress ka fiirisid qof iibinaya kadibna aad u soo wareejisid dhanka iyo Shopify store oo furatid Facebook ku xaysiisid sababtoo ah TikTok dadka jooga iyo Facebook dadka jooga waa laba dad oo kala duwan meesha labaad ka fiirin kartid waxay tahay iyadana oo sida kala data u shaqeyso waxay tahay iyadana Fastmos soo hadaa fiiri hadda Fastmos dhamaantood maaragtay isku si ay u shaqeeyaan hadaa fiirisid Fastmos iyadana waxa waaye maaragtay iyadana sidoo kale waa untii hadda camal waxay ku tusayaan TikTok shopka sidoo maaragtay productyada lagu gado ku dhawaad 200 milyan oo product ay ku tusayaan the same kii hadda camal wuxuu yahay waa waxay ku tusayaan productyada maaragtay TikTok shop ka shaqeeyay waana meel aad ka fiirin kartid maaragtay labadaba soo waxa sameynaysaa gmail kaaga baa gelinaysaa kadib sign up leedahay todo bari waxa haysataa ku fiirin kartid research ku ogaan kartid productyada doortaaniyo productyada maanta shaqeynayo ka fiirinaysaa muuqaal maaragtay dhameystiran ayaan ka sameyn doonaa sida maaragtay kalo data ama hadda Fastmoska loo isticmaalo oo laga soo dhex saarto product winner laakiin waxaa inoo ogaatid halkaas ayaa laga soo saaraa sidoo kale waxaa ka ogaan kartaa TikTok hada maanta telefoonkaaga qaadid oo ku qortid TikTok made me buy it Amazon made me buy it waxyaabo noocaas oo kale hashtagaas aad isticmaashid oo arkaysa alaab lagu dhaxaysiinayo meesha marka alaabaas waxay tahay waa dropshipping soo alaabaas hadaa wadid hadaa videoshas like asiisid ku socotid like asiisid oo arkaysa in feedkaaga dhan
uu maaragtay page-kaaga dhan uu noqonayo wada maaragtay xaysiis uu noqonayo saas ayaana maaragtay ku heli kartaa waxay dhahaan TikTok banner method ayay dhahaan waa qaab noocaas aad maaragtay scroll garaynaysid maanta TikTok ku dhex jiraysaa oo kolba waxaa la garanaysaa marka aragtidba waxyaabo xaysiis ah product ah kadib markaa la garisid TikTok waxa u badan inuu kuu soo keeno kuwo kale badan saas ayaana maaragtay uga helaysaa product winnerkaaga sidoo kale waxaa ka heli kartaa Instagram-ka sida TikTok haddaan sheego kale haddaad ku qortid TikTok Instagram made me buy it ama Amazon maaragtay must buy waxyaaba noocaas oo kale hashtag iyo xajat la isticmaalo haddaa kuwaas kale ku qortid iyadana waxaa arkaysaa sidoo kale sida TikTok hadda inaad ka heli kartid research product research maaragtay ugu dambeeya aad samayn kartid waxay tahay inaad ka dhex raadsid ad library so ad library waxay dhahaan waa waxaas kale Facebook wuxuu ku tusayaa inta ka tuskaraabo ad library wuxuu ku tusayaa information wuxuu ku tusayaa dadka xaysiis ku sameynaya Facebook dhexdiisa soo qof walba oo maanta wax ku dhex xaysiinaya Facebook waxa ka dhex arki kartaa maaragtay ad library waxa iska lameta Facebook soo kaliya waxa dooran hadda Kenya jooga waa ka bedeli karaa waxa dhigi karaa maanta waxa rabaa in ogaado United States dooranaya ad category waxa leeyahay all ads waxa search gareynaya maybe knee pain halaya maanta waxa rabaa in ogaado storada ku xaysiinayaan United States dhexdeeda oo maaragtay target gareynaya ama ka hadlayo jilba xanuun knee pain so marka knee pain waa just keyword waaye waxaad dooran kartaa back pain whatever so marka waxaa aragnaa in ayna soo baxeen qoladan waxaa la dhahaa SSM Health Greater Fund waxa magacaadii Facebook page aa furinaysid waxa maahan kadibna xaysiis muuqaal ay soo gelinayaan and I think one book now hadday ku dhahayaan waa I think waxa waaye appointment waxyaabahaas waaye kuwa dhakhtar waaye ka soo soco so maaragtay iyo ugu badan so waxaa arkaysaa marka in ay inay maaragtay intaasoo xaysiis ay sameynayaan si ay maaragtay u target gareeyaan dadka waaweyn oo meelaha xanuunayaan so marka kaliya haddaad qortid the keywords-ka aad raadinaysid waxaa helaysaa haddaan ka dhex raadiyo meeshan waa soo dhex saaraya haddaan product oo dropshipping aad ay u fudud inaad ka dhex aragtid sababtoo kaliya waxaa raadinaysaa I think kan hadda wuu yahay malaya haddaan dhaho land more mise shop now labadaas ayay u badan tahay inay maaragtay ku dhahayaan so haddaana land more kadib waxaa arkayaa inuu igeenayo page oo maaragtay waxay dhahaan advertorial page so advertorial page-ka macnaheedu waxay tahay in marka koowaad qofka ilan maadaama qofkan uu xaysiis kaa soo raacay oo Facebook uu kaa soo raacay uusan ku garanin uu xaysiiskas kaga dhuftay muuqaalku daawad wuxuu dhahay maybe ni waxaan bal gudaha u sigala arka waxay ka hadlayaan qoladan soo marka toos uma geenaysid maaragtay meeshii lacagta lagu bixinayo sababtoo ah qofkan haddii waaba qof maaragtay wadada maraya kugu soo leexda waa lacag keen qofkii ma dhigi kartid qofkii markuu inaa waxaa la rabaa inaa warm up samaysid qofkii inaa maaragtay soo dhaweysid qofkii inaa waxaa iibinaysa aad tustid waxaa faa'iidada u leedahay aad tustid qofkii inaa marka horta educate gareysid qofkii inaa fahamsid qof maanta wadada mar haddaa ka hor lacag keen horta lacag aan ku siiyay horta maxaa iibinaysaa qofka ku dhahaya sababtoo ah waa inuu ogaado horta waxaa tahay iyo waxaa iibinaysa iyo waxaa ka hadlaysid soo marka muuqaalka kaliya kuma filno marka qofkii markuu laan moo dhaho waxay toos u keenayaan badanaa maaragtay advertorial page qofka waxaa la tusayaa jilibka caadiga siduu u egyahay waa kana jilibka markuu qabo xanuunka la dhaho osteoarthritis-ka dadka arthritis-ka qabo asaana u egyahay waxaa lagu leeyahay marka productigan jilibka oo la xugu xirana ayaa ku saacidaynayso waxay ku dhahayaan and try this breakthrough solution to stop knee pain or risk never walking again so marka titlekaas kaliya ayaa laguga cabsiina waxaa lagu leeyahay solutionkan isku day ama haddii kaleeto socod adi iyo socod waa zeynaysan sababta waxaa leedahay socod inaan zeyna ma rabno I don't wanna maaragtay risk ever walking again ma rabo inaan mar dambe socon waayo so marka let me try waxaa sheegaysaan so qofkii marka waxaan akhristo wuxuu ka hadlayaan sidan ahaan jirtay macluumaada la siinayaa qofaa ka hadlaya my friend spent thousands of dollars to find his new solution qofaa waxaan soo raadiyey maaragtay waxay hagaajiyeen conversation been hagaajinayaan and then wixii ka hadlayaan soo marka qofka horta waxa waa inaa educate gareysid waxaan waxay tahay baashi magaca u bixin waxa u bixin patella prime wax magacayga iskala bixin waa wax magacaarta u bixin kartaa and then waxa ku tusayaan what makes patella prime so effective maxaa ka dhigaa in
maaragtay productigeena uu ahaado wax shaqeynaya maxaa ka dhiga ay leeyihiin kadib way explain gareynayaan waxay ku dhahi karaan camal dhakhtar asaas dhahay hadda kor hal isticmaala baashan dhakhtar hebel dhahay so marka waxay sameynayaan in maaragtay qofka ay warm up gareeyaan sababta qofka markuu ka soo raaco Facebook qof hore ku aqaan store-kaaga ma qof dukaankaaga weliga imaada ma so qofkaas kale waxay dhahan waa cold maaragtay visitor qof waxa way cold ah oo ku imaado ma taqaantiin qofkaas ma taqaantiin cold waa markuu meeshaada soo galo wax u sheekaysid tustid waxaan u shaqeeyo soo ku tisay maadaama uu isla joogo oo dukaan caadi ah waa online soo qofkii markii inaad siisid article buuxa oo ka hadlaya sida wax u shaqeeyo soo markaas qofkii wuxuu noqonayaa warm uu noqonayaa xolay okay waan ku fahmay okay kadib waxaas oo qofku ku soo akhristo hoostan waxa ku qoran check availability yani fiiri horta productiga inaad heli kartid marka ku dhufatid kadib ayaa lagu geenayaa meesha lacagta ku bixin waa kan hadda gudaha soo gashid waxa arkaysaa qiimaha lagu sheegay ka hor laakiin waxa lacag dhan ma laga hadlin sababtoo ah waxa la rabaa horta inaad maaragtay warm noqotid wixii lagu fahamsiiyay ana waladaad kadib ayaa laga sii iibinaya gudaha loo keenay so waxa la dhahaa sales funnel so businesska xogaa complicated waa ina sales funnel hagaajisid waa ina maaragtay qofka warm up gareysid waa whatever and so san sheegay ku fogaaday san sheegay marka waxa kale isticmaali kartaa library so wixii product research la xiriiro kaliya waxa waaye intaas oo meel ayaa ka heli kartaa and then it's done way dhamaatay stepka labaad waxa waaye aan dhahno waxaad dooratay product yaa soo heshay waxaad inay baashan jilibka xanuunaya rabaa inaad sameeyo taas ay u go'aantay maxamedo waana product wax xalinaya waa product maaragtay la hubo maaragtay inuu dhibaato weyn xalinayo dad badan ayaa jilbaha xanuunaya dadka waaweyn badana dadka waaweyn waxay u badan yihiin Facebook san wada ognahaybo so marka waxaa sameynaysaa next step horta waxaa waaye Shopify store inaad samaystid Shopify ayaa sign up garanaysaa Shopify the good thing waxay tahay 3 bilood oo ugu horeyso waa bilaash kaliya waxaa laga qaadayaa $1 bisha afraad ayaa lacag bixinaysaa so marka 3 bilood already waxaa laga yaabaa inaad lacag samaysid inaad maaragtay tisgarisid dhowr product haddii productka fahmaysid bixi haddana maaragtay gmail kale baa furanaysaa 3 bilood kale haddana baa qaadanaysaa waxaa laga yaabaa marka adoonan maaragtay inay 3 bilood ma kugu dhamaanaysa adoodan wax walba kala ogaanin oo productka ay helin so marka koobaad waxay iibsanaysaa waxay tahay domain waxaa waaye www.waxaas.com youtube.com canva.com waxaa artid waxay noqonaysaa domain so domainka in ay iibsatid waaye hadda qoladan waxaa la dhahaa Patela so domainkooda waxa waaye product yaa la Patela domainkooda waxa la kaas karo waa buyhealthylabco.com marka waxay iibsanaysaa random maaragtay niche ay iibsanaysaa daartina ka hadashid kaliya beauty waxyaabaha la isku qurxiyo magac ChatGPT ay weydiinaysaa haleeda magac beauty la xiriirisi si store-kaaga kolba mar ugu tijaabisid wax walba la xiriir beauty si aad hadaad noqoto inaad maanta iibisid maaragtay eyeliner aad ku iibin karto hadaa beri sidaa waxaan rabaa inaad ku iibiyo maybe lipstick aad ku iibin karto sababtoo ah waa isla wixii ay hoos imaanayaan marka waa inaad domain gadataa marka labaad waxay tahay waa inaad store-kii markaad domainka gadatid uu qalalan yahay foolxun yahay ma quruxsano waa inaad maaragtay dana website design aad samaysid oo website inaad maaragtay in store-kii aad qurxisid waay yani hadda store-ka markaa fiirisid waa properly made waa si qurux badan ayaa loo hagaajiyay haddaan ku tusido ugu shaqeynaya markaad telefoonka samaysid markaad telefoonka isticmaalaysid waa kana waa aragtaa markaad soo gashid productiga ayaa arkaysaa wax walba loogadu way weyn tahay oo dhanaa productiga waxay tahay wuxuu xalinayo waxa lagu leeyahay kaliya $49.97 ayaa laga iibinayaa waxaa leedahay 180 days money back guarantee marka macnaheedu waxay tahay haddaana fahmi weysid productiga hadduu ku shaqeyn waayo lacagta soo maaragtay productiga waa soo celin kartaa money back guarantee qofka waxay ka saaraysaa cabsida oo waxan hadduu shaqeyn waayo ka waran soo celin karaa camal waa soo celin kartaa 180 days haysta haddana waxa lagu leeyahay waa limited stock availability yani alaabtan stockgeeda waa limited alaab yar kaliya taale yani orodoo soo iibsa markiiba waaye oo maaragtay soo qaado sidoo kale haddana waxaa lagu daray oo lagu dhahay order now to claim buy one get one free iyadoo waxaasoo dhan lagu sameeyey oo maaragtay lagu soo dhaweeyey lagu dhahay kaliya intaasaan kaa siinaynaa 180 days ay haysataa money back limited waa ka faa'iideyso oo maaragtay fursadan ayaa kadib haddana waxaa lagu sii dhahay waxaa haysataa buy one get one free waxaa iibsanaysaa qiimihii hal waxaa iibsanaysaa mid labaad ayaan kugu dareynaa oo free sababtoo ah markaa fiirisid shaygan waa shay jilbaa lagu xirto hal xabo qof wax ku falaya ma laha
soo qofkii waxa laga yaabaa inuu jiro qof kale guriga la joogo jilba laga hayo ama qof kale ayuu u hadiyeyn karaa marka hal xaba gadatid qofkii haddana maaragtay mid labaad u baahan yahay ama qof uu siin rabaa ama qof uu hadiyeen ama waalid u gadaaya soo marka hal xaba ma ku suurtagelayso soo laba xaba ayaa qofkii maaragtay ka siinaysa waxaan ugu sheekeynaysaa oo hal xabaan free kugu siiyey hal xaba ay iibsatay soo marka saas ayuu u shaqeynaa marka fiir storeka marka ka dhex fiirisid telefoon ahaan marka u fiirisid waa kana sa aragtid buu qurux badan yahay waxyaabo badan ay ka hadlayaan 87% of our customers report faster results yani natiijo fiican ayaa laga helay leeyahay productigeena marka aragtid marka waxaana dropshipping store ama dhihaysid waxaas leedahay waxan waa brand saxa waxaas leedahay waa dad saxa waxan iibiyo oo jiro oo maaragtay wadanka jooga is leedahay laakiin marka fiirisid waa dropshippingkii laakiin waa dropshippingkii oo weynaaday oo yani aqli lagu daray la fahmay storeka sida u shaqeynayo la fahmay dadka in maaragtay marka koowaad aan lagu soo ordino lacag keen la dhihin in qofka marka koowaad horta la maskaxeeyo la warm-up-gareeyo la fahamsiiyo producting wuxuu yahay qofka in cabsida laga saaro in qofka maaragtay yani waxyaabo badan ayay maaragtay ka bedeleen oo sidii waa hore ma aha waa hore waxaa laga yaabaa in storeka uu yahay store xun oo qashin ah in wixii maaragtay isku mid maanta la joogo daasaan ku dhahay hadda waxan waa branded marka taa laga soo tago designka haddana waxaan fiirinaa website-ka waa sidoo kale waxaa isticmaali kartaa AI maanta waxaa jiraan AI store builders waxaa jiraan qolooyin maaragtay AI ah meesha adiga laga yaabo ina waxaan ku rafaadi lahayd adiga xabad u hagaajin lahayd inaad isticmaashid AI kadibna AI-ga uu ku hagaajiyo maaragtay store branded ah laakiin kan camal ma ahaanayo sababtoo kan waa mid caadi loo sameeyay kan waa sales funnel laakiin mid kale waxaa jirto oo marka AI lagu sameeyo ana waa garan karaa qaab kale oo xili nooc kale ay leeyihiin soo marka waxaa jirto meel waxyaabo la isticmaalaa jirto si aad u sameysid AI store builders yani maanta waa lagu sii fududeynayaa wax lagu leeyahay oo design ma taqaantid miyaa sida loo sameeyaa just use AI you know like saasa ku heli kartaa mid kale oo ka hadlo xitaa storeka waa inuu hado branded waxa la laasan ku sheegay the store maaragtay marka soo gashid dhig kartid oo storekan waxaana iibiyaan so waxa loo baahan in storeka uu hado branded marka soo gashid dhig kartid okay dukaankan waa beauty kaliya waxay iibiyaan waxyaabaha beauty-ga kaliya waxay iibiyaan aan dhahno makeup waxyaabaha la xiriiro storekan wuxuu iibiyaa dhar so ma isku dhex geli kartid dhar iyo haddana ii sheegay microphone camal waxyaabo islahayn mal rabo inaad hatid mal rabo dukaan qashin ah oo wax walba laga helayo inaad hatid mal rabo hal inaad hatid branded nadiif inaad hatid haddaa iibinaysid shay maaragtay kasoo qaad waxaa iibinaysaa birkin oo u fiican dadka dhabarka xanuunaya kaleeto dadka hurdada xun inaad keliya storekaaga birkima ku iibisid iyo wax walba la xiriira hurdada camal inaad ku iibisid maybe bahal mask weji lagu xirto kaleeto oo hurdada kaa saaciday waxyaabo noocaas oo kaleeta in waxa uu ahaado wax branded ah oo maaragtay legit ah taas ayaa muhiim ah sidoo kale inaad isticmaashid funnels saada sheegay funnels waxaa ka mid ah qoladii hadda aan fiirinaynay oo kaleeto funnel ay isticmaaleen oo marka koowaad qofkii call traffic ahaa waxay ka dhigeen warm kadib adiga waxay ku marinayaan dhowr stage ayay ku marinayaan kadib ayay ka iibinayaan soo markii markaa iibinayaan oo waxay hagaajiyeen qofkii inuu maaragtay soo dhaweeyaan productigan horta lagu sharaxo wuxuu yahay dhibaatada jirto dharara kadibna ugu dambeyn qofkii wuxuu u badan tahay inuu maaragtay wixii iibsado laakiin qofkii maaragtay qof dukaankaaga imaaday oo alaabtaada hataa weli aan si fiican u eegin daraadii lacag keen ka hor waxaan waxa la iibiyaa waxaas lacag keen lacagaan keenay horta waxaan bal aan horta aan fiiriyo waxay yihiin oo aan maaragtay qof wuxuu ku dhahay horta aan maaragtay waxa maxay iga saacideynaysaa in horta ogaadaan rabaa marka koowaad soo marka daas funnelka uu fiican yahay just wuxuu sameynaya soo marka waa inaad funnelka iyadana aad sameyn kartid oo sales funnel aad sameysid iyadana waa haddii waa shaqo kale daas waan ku dhahay dropshipping is never easy bro funnels aad sameynaysaa ii sheegay domain aad gadanaysaa Shopify aad furanaysaa by the time already research soo sameysab iyada noocaas dana intaas soo wax ayaa maaragtay sii maraysaa next waxa waa creatives waxa la lahaa xaysiiska waxa u isticmaali lahayd sababtoo xaysiiska waa inaad gelisid saa hadda shay oo kaleeto marka xaysiiska adid waxaan kale hadda waa muuqaaladan waxa la dhahaa creatives waxa waaye wixii aad isticmaalaysa inaad wax ku xaysiisid soo marka waxay noqon karaan video saa hadda inta ka aragno kale videoyaal oo koon waxay noqon karaan sawir hadda sawirkan fiirin waxaa lagu hagaajiyay ChatGPT waxaa ku qoran stem cell option for chronic knee pain marta waa sawir yar oo qof markuu arko ka turjumayo dhibaatada jirto ka turjumayo qofkiina saas uu ku ogaanayo soo marka waxaa isticmaali kartaa
sidoo kale waxaad isticmaali kartaa UGC ads, and UGC waxaa waaye dad caadi ah oo user generated content creators waaye, dad caadi waxaa waaye oo TikTok ku jiraan oo kaleeto oo ka hadlayaan productigan aad soo qaadan kartaa, sababtoo ah kilo data iyo kuwa hore aan kugu sheegay waxay ku siinayaan keliya ma ku siinayaan productyada ugu fiican TikTok shopka ee laga iibsaday, sidoo kale waxay ku siinayaan muuqaaladii maaragtay keenay iibka, muuqaaladii ka dambeeyay in TikTok shopka productigan uu lacag badan ka sameeyo. So muuqaalada ayaa soo qaadan kartaa, waa muuqaalo dad UGC ay sameeyeen waay. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa AI voice overs si aad ugu sameysid markii aad sameysid voice overkii aad hagaajistid, waxaad dul saari kartaa muuqaaladii kaleeto oo qofkii maaragtay oo dhabarka xanuunaya kaleeto, qof maaragtay productiga isticmaalaya kaleeto, waxaad dul saari kartaa cod aad hagaajisay oo voice over ah oo maaragtay aad dhahayso dukaankaaga magaciisa sheegayo, offerka sheegayo dhahayo kale oo maanta buy one get one free aan sameynayna. So codkii aad soo qaadanaysaa marka koowaad waxaad geenaysaa CapCut ama Premiere Pro, marka codka horta aad dhulka dhigtid oo aad maaragtay codka aad keentid, kadib codkaas baa maaragtay ku kor muuqaaladii wixii la xiriiro dul saaraysaa, marka dhad waxaas wixii soo saaraysaa, saas ayaana maaragtay ku sameynaysaa. sidoo kale waxaa jiro AI UGC creators muuqaal ayaa ka sameeyay, muuqaalka ugu dambeeya soo fiirin kartaa, igana maaragtay ku xaysiin kartaa. TikTok rip-off waa ka hadda sheegay in muuqaalaha TikTok ka soo qaadatid aad ka isticmaashid, sidoo kaleeto AI image ads waa sida ka hadda ku sheegay oo wuxuu isticmaalay qofkan AI ChatGPT ayuu isticmaalay. ChatGPT waxaa jirta qaab aad u isticmaali kartid, kaliya inaad ataa adeegsatid ChatGPT waxaa u baahan tahay xirfad inaad ogaatid ChatGPT sida loo adeegsado, waa xirfad gooni ah iyadana oo la rabo in aad baratid. So marka way badan yihiin waxyaabahan dhan, traffiga loo baahan yahay, fulfillmentka loo baahan yahay. In short waxaa arkaysaa in waxaanoo maaragtay shay ah aan maaragtay laga rabo inaad marka hore la imaatid. Programka aan sameyna aniga oo ah inaan maaragtay arday one to one ahaan barayo, programkayga oo hadda igala soo xiriirtid Instagramka ay heli kartid. waxaan dhan anaa maaragtay kula garab qabanayo inaan product kula dooro, in domainkii aan kula sameeyo, in maaragtay website-kii aan kula sameeyo, store-kii aan branded ka dhigno, funnels aan abuurno. So waxaa arkaysaa qof maaragtay aan weligii waxaas arkin sameynin, waa qofkii gacanta ayaan qabanaya, wixii ayaan tusaya oo maaragtay funnelka ayaan la bulgareynaya, wixii dhan waxaa sameynaya qof maaragtay ku garab taagan oo kula maamulaya, waa ku tusayo meesaana sameynin, funnelka saan ka dhig, branded ka dhig, loogada bedel, saan ka sameeya, domainka kan ma ku fiicna, kana ku fiican. iyo markaa dhahdi ka hor adaa iska walaaqaysid, then waxaa arkaysaa inaa waxyaaba badan isku qaldi kartid oo wareeri kartid. wax walba wuxuu ku fiican yahay markaa haysatid role model, markaa haysatid aan ka wada role model maahan, in markaa haysatid qof maaragtay ku diinaysid, qof maaragtay ku tusaayo, ku hagaaya, mentor. markaa haysatid mentor ayay ku fiican. daas aan ku dhahay programkayga is basically mentorship. wax maaha koorsinta kaa iibiyo ha ku dhahay adig ku taalaa meesha ay aad waxaa sameynaysa samee. daas waxaa u baahan tahay qof ku garab istaago, ku garab qabto, kuu sheego maxaa funnel isticmaali kartaa, sidee ku hagaajin kartaa store-kii, maxaa ka bedeli kartaa, UGC ads miyaa isticmaalnaa, AI see u hagaajinaa, AI voice over xagee laga soo qaata, xagee lagu hagaajiya AI voice over, inaa ogaatid AI UGC see ku heli karnaa, scriptigiisa ku sameynaa, ChatGPT see images u hagaajinaa. So marka inaa heli kartid waa qof maaragtay commenta gareeyo. daas waa aan u sameeyo programkayga si ardaydooda maaragtay quickly waxa dhan bil gudaheeda uga dhamaadaan. midda kaleeto oo laga rabo inaad keentid marka creative sameysid waa inaad sameysid traffic waxaa waaye store-kaaga waa sameysay, wuu diyaarsan yahay, productiga waa keentay meesha, sawiraantii waxna ku diyaarsan yihiin, creatives ku diyaarsan yihiin. waxaa loo baahan yahay dadkii iibsan lahaa inaad keentid, marka waa traffic inay meesha imaadaan waay. dadkaas waxaa ku heli kartaa inaad sameysid organic waxaa waaye inaad muuqaalaad aad duubtid, wixii aad ka hadashid ama wixii aad film gareysid. waa sameyn kartaa free waa organiga, laakiin dhibkiisa waxay tahay waa inaad maaragtay soo fadhiistid, muuqaal aad sameysid, wixii way dhib badan tahay. productigii inaad soo qaadatid aad keensatid waaye. waxaa ku xisaabtamaysaa kaliya wixii inuu noqdo viral. So muuqaalka hadduu viral noqon waayo adiga way ku dhamaatay. ma aha maaragtay mid aan recommend gareynayo. midda labaad waxay tahay paid traffic, waa traffic aad lacag ku bixisay, waa sida maaragtay Facebook oo kale inaad lacag ku bixisid. waa dad Facebook dad kuu soo diray waaye, TikTok dad kuu soo diray waaye, waa dad maaragtay Facebook u dhahay okay dadkan waa dad muddadii ugu dambeysay
raadinaya kasoo qaado kale Google-ka waxay ku qoraayeen dhabarka ay xanuunaya maxaan sameeyaa camal sababtoo ah daatada ayuu soo xadaya Facebook saa wada ognahaybo telefoonadena daatadeena way xadaan taas wax la ogyahay waa Facebook TikTok kudi way xadaan soo qof markaad Google maanta ku qortid dhabarka ay xanuunaya maxaan sameeyaa camal wuxuu ogyahay okay qofkan dhabarka xanuunaya okay way dhamaatay biri waxa arkaysa marka Facebook gashid waxa ka hor imaanaya xaysiis dhabar xanuun ah niyose ku ogaadeen dhabarka inuu xanuunaya leedahay se ku ogaadeen maxay tahay adaa ku qortay dhabarka ay xanuunaya soo daatadii waa la xaday already soo daatadii waxa laga sii iibinayaa qof anoo kale ah oo Facebook ku dhahayo lacag aan siinaya ii soo raadiyay qofkaas dhabarka xanuunaya qofku ahaa soo dad badan waxa lagu keenayaa dhibaatadaas mise waxa iibinayso la xiriiro oo wixii sameeyaan so saas ayaa ku helaysa traffic Facebook uu aqal badan yahay and everything all of that step u dambeeyo waxay tahay fulfillment waxa way alaabtii inaad dirtid waayo sababtoo ah markii laga iibsado in alaabtii diri kartid waaye soo meelaha laga diro oo fulfillmentka laga sameeyo xitaa AliExpress isticmaali kartaa AliExpress kuwa hore waxa lagu yaqaan inuu ahaa just waxyaabo qashin inay ku iibiyaan alaab China taalo alaab maaragtay qaadanayso in lagu keeno maaragtay 3 bilood qaadanayso maanta la joogo laakiin AliExpress especially Europe iyo USA aad ay maaragtay u horumareen oo hargeysa product China laga keenay ilaa Mareykan imaanaya inay ku qaadanayso kaliya 12 bari inay ku qaadanayso kaliya 14 bari iyadoo noocaas taa wali maaragtay slow ani aan markaa ma garan lahayn inaa ii sheegay alaab China maanta taala isticmaashid waxa isticmaali kartaa alaab AliExpress taalo laakiin maaragtay US dhexdeeda taalo waxa jiro AliExpress alaab laga maaragtay qofa soo qaaday supplier wuxuu keenaa warehouse ku yaalo US soo qofkii wuxuu ku dhex iibinaa AliExpress wuxuuna joogaa Mareykanka ayuu joogaa alaabtii isaga asoo iyadoo badan soo qaatay oo wuxuu keensaday warehouse ku yaalo US kadib isaga si iibinaya soo qofkaas oo kaleeto sababtoo US ayuu si joogaa qofkii in u diro fududahay shipping time ku waa clear 5 to 7 days waaye soo qofkii ma sugayo oo maaragtay waa fast shipping waxa isticmaali kartaa DSs waxa isticmaali kartaa Auto DS Zendrop dhamaantood waxay yihiin fulfillment suppliers ay yihiin mid ka hartida isticmaali kartaa maaragtay dhamaantoodna way wada shaqeynayaan qaar ayaa free qaarna free maahan marka saas ayay u shaqeeyaan basically drop shipping lagu sheegayo guud ahaanba intaas ay ku kooban yahay maybe hadda waxay sheegi kartaa commentiga haddii tahay wax fudud waxay sheegi kartaa commentiga in maaragtay ay tahay oh wow san ma umaleynaynin yani wax marka korka aragtid marka gudaha calooshiisa aad fiirisid saas camal ayay la mid tahay oo wixii gudaha ayaan u dhaagsad gareynay gudaha u galnay so marka in general this is dropshipping this is how the business model works maaha ii sheegay wax oo iska been maaha waxa si fudud ku samayn kartid maaha waa wax business legit oo kaaga baahan inaad maalin walba gashid sida yani maanta ugu focus hada maanta dukaan banaanka ku samaystid oo xaafada deganta dukaan ka samaystid wuxuu kaaga baahan rolba inaad furtid inaad xaysiisid inaad dhex fadhiisatid inaad maaragtay alaabtii maaragtay sheegay aan maaragtay hagaajisid dukaankii aad qurxisid yani waxaas oo dhan way kaaga baahan tahay dukaan hada maanta banaanka furtid oo xaafada degantahay the same way uu kaaga baahan yahay waa storeka online-ka ah inaad meesha soo gashid maalin walba inaad xaysiisyo cusub samaysid inaad storekii qurxisid waa sida nashqadii meeshii aad hagaajisid inaad dad soo raadsid traffic aad samaysid lacag ku bixisid inaad waxa dhan way kaaga baahan tahay file inaad samaysid inaad ka dhigtid branded so in general waa inaad siisid focuska aad siin lahayd markaad business caadi samaynaysid sababtoo ah this is a business oo legit ah oo qof markuu soo kaco uu ku mashquuli karo ilaa habeenkii uu samayn karo oo maalin walba intuu soo kaco uu businesskii operate garan karo so waxay kaaga baahan tahay maaragtay full focus and effort kaaga baahan tahay inaad samaysid haddii maanta aadan lacag haysanin saa hore u sheegana ma ku shaqeynayo sababtoo ah waxaa loo baahan yahay investments waxaa loo baahan yahay cash flow ayaa loo baahan yahay haddaadan haysanin and yeah good ahaan that is that so I think waxaan malayaa inaa haysatid fikrad hadda ka duwan markii hore fikradda haysatay haddii wax su'aala qabtid waxay la soo xiriiri kartaa Instagram-kayga waxaan soo dhigi doonaa linkiga description-ka haddii uu jiro wax maaragtay kale oo ay weydiin rabto sidoo kale Instagram-ka ay weydiin kartaa haddaadna program-kayga aad maaragtay ka qayb qaadatid oo aad ogaatid qaabkaan wax u baro iyo maaragtay ardayda iyo waxyaabo noocaas oo kaleetaana sidoo kaleeto waa ay weydiin kartaa su'aalaha noocaas oo kaleeta ah so marka waxaan filayaa muuqaalka inuu yahay muuqaal ka faa'iiday muuqaalku uu dheer yahay but very informational way ma jiro qof dropshipping ka iibinaya maanta oo waxa soo macluumaad ku sheegaya sababta waxa laga yaabaa koorsa ka bixisay maanta lacag
oo qof kale ka iibiyo oo dropshipping qof kale ka iibiyo Soomaaliya inuu waxaan oo macluumaadka kugu sheegina laga yaabaa waxaan bilaash kugu sheegayo dad badan waxa jirtay la soo xiriir dhahe oo ilaa ustaad kaliya muuqaalada caadiga YouTube-ka soo dhigtid waxa ka hadashay kaliya koorsa aan iibsanay waxaas dhantaa ma ku jiraan waxaas dhantaa kama hadlin inta yarta kaliya ka hadashay ayaa ma aragtay ka muhiimsan wixii la bar camal mas waxaas ma anaga maana maqlinba that's why ani markuu man garana qof inuu koorsa iibsado qofku waxa jecel inuu mentorship program uu sameeyo ma aragtay isagii la mentor garay isagii inuu sameeysan karo wixii oo la garib istaago oo la tuso waxaas oo kale taa ayaa ka fudud marka hada muuqaalka yeeshay like subscribe and share intaas iyo nabadgelyo bye bye